dhaawac wuxuu ugu soo gaaray muqdisho gaaracad xabadda bilaalka oo dhacday. bilaal buu ku dhacday isagaa soo sokeeyey markii xabadda ay kuwa dableyda aan ku ridayeen. maya kowba xabadda asay ku dhacday bilaal. kow marka horta kow bilaal ninkuu soo hor istaagay baskoolada wato gadaashiisa dhabarkiisa soo istaagay. markuu dhabarkiisa soo istaagay waxaa ku dhahay bilaal oo baskoolada. bilaal marka saan u jeesanaya xabadda kusoo dhacday. xabadda markay bilaal ku dhacday mid labaadoo uu ku dhufarabay midii labaada teleefoonkii nin ku dhuftay. okay taa marka micnaheedu waxay tahay xabadda in madaxa lagaga dhufto baa la rabay yacni meesha inuu meyd ahaan in lagaga tago so bistooladda markaa tiri iswareejiyey bay xabaddii marka meel kale kaga dhacday. maasha allah maasha allah ilahay ka sugo ninka aad badbaadiyey diloro mar labaadna inuu kusii dhufto rabe kabacdi teleefoonka ku dhuftay kabacdina ugu soo jeesta anoo ugu dhuftay waana carar. hal qof buu ahaa. hal qof oo ahaa. wejigiisa ma aqoonsatay? wallaahi ma aqoonsan kar meel mugdi ah. okay okay meel mugdi ah okay marka bilaal markay xabadda koowaad ku dhacday tan labaad ma adigu ku soo riday mise tii labaad ee bilaal loo wada adigu kugu dhacday? tii labaad oo bilaal ku dhufan rabay markaa telefoon ku dhuftay inay soo sarmatay aanay u dhacday waa tan ugu jirto. okay okay marka sidii labadiin dhulka ugu dhacdeen ya labadaas xabadood bisoo ninka oo idinku riday? ha marka oo xabadda bilaal soo sarmatay telefoon ku dhuftay xabadda soo saritaanka markay ugu dhacday telefoon ku dhuftay kabacdina ugu soo jeestay laba baalood ugu soo riday waana bax. okay so xabadda koowaad markay bilaal ku dhacday oo aad mobilka ku tuurtay tii labaad iyo laba kale kugu soo riday labadaas adigu saddex kugu dhacday taas labaad iyo xabad kale oo xabadda oo bilaal soo sartay. okay so saddex kugu dhacay saddex xabadood. hal xaba hadda kugu jirta? hal xaba ugu jirtaa. okay marka waxaan rabaa warbixin aad iga siiso waxaan maqlay allaha u naxariistay farxaan qaroole waa arrimihii nafiisaha iyo waxyaabahan shayaadiinta ahaa al-shabaabta dhalinyaro waxaan garanayaa qaar qaraabo aan nahay oo ay ku jiraan wiilal caayr iyo badhaala gabar baa ii sheegtay marka waxay igu tiri waxbaa loo aruuriyo reerka qabiilada wax u aruuriyeen waa la yaaba marka waxaan dhahay ninkani askariga ah ee maanta istanbul lagu daweynayo qaranka soomaaliya u dhintay baan dhahay ama uu u dhaawacmay waayo marka ninka askariga ee soomaaliga markuu u dhaawacmo turkiga la geeyey waxay qabiilkiisa garab u siinayaan dowladda may garab siiso marka waxaan ogaadaa askariga dhimanaya xitaa meydkiisana waxaa aasta dadkiisa hadduu dhaawacmana waxaa daweysta dadkiisa dowladda soomaaliya maanta maba ka jirtaan dhihi lahaa waana midda aan ka xumahay marka adigoon ba askari ahayn haddaa dhaawacantana xaalka meeshuu maraya marka waan dareemi karaa. okay marka kolley soomaalida markii dowlad laga soo tago inta badan waxaa jira ehel iyo waxyaabaha ma jiraan marka dad adiga ehelkaaga ah oo garab ku siiyey inta hadda turkiga aad joogtid? wallaahi hadda dad ehela oo maanta garab siiyey dhahayniyo waxaasaan ku siinaynaa ma jirto laakiin adi familkiiyo waxaa dhahan waxaa raadinaynaa uun intaasna niyo meeshaada joog. okay okay so soomaalida inta badan dadka ladan ma ahan wax wada haystaa xaaladda turkigana waa dareemi karaa soomaalida turkiga ku nool baa waxay yihiin dad iska tahriibiyaal qaarkood waxbarashay meesha u imaadeen iyaga anba waxba haysama soomaalida maanta turkiga joogto dadku caawin kara maba ahaba taa xaaladooda anigaan garanaya ilaahay qof kasta dhib baa haysta dhibka allaha ka qaado. bilaal bulshaawi maadaama lacagta la aruuriyey labadiinaba laydina wada aruuriyey wuu kaa caansan yahay inta badan that's why marka akoonkiisa lacagta mar walba kusoo dhacaysaa qofka caanka ah bay dadka inta badan garanayaan adiga cidna kuma aysan garanayn that's why marka lacagta isaga akoonkiisa ay ugu dhacday. ma jirtaa wax dowlad ah inta magaalada muqdisho aad joogta aad ku dacweysay oo aad tiri war ninkan isaga dartii uu dhaawac ii soo gaaray aniga nacaana ma aanan ahayn isagana meel la joogay agtiisa baan ku dhintay xoolihii walaalihii soomaaliyeed kuwii qurbaha jooga iyo kuwii dalka jooga ay noo aruuriyeenna wuxuu leeyahay ganacsi baan ku furanayaaye ilma adeerayaal islaamnimo haddii jirto ninkaana kala dhex gala oo saldhigyo booliska inta badan laga dacwooday iyo meelabaa jireen weli dowladda ma ku dacweysan bilaal intaad inta joogto? wallaahi horta dowladda kuma dacweyn dowladda hadday xaq samaynayso horta dhiiggeenay meel ku sheegi lahayd ma fahamti daas waa marka aan u sheegi waayo ah oo aan boolis laakiin haddadan xitaa markaa turki imid wallahina been kuu sheegin ku dhahay dhalinyaro asxaab yihiin inaa waxaa ku dhahay niyaho ani horta ninkaa saaxiibkii walaalkii horta shalay madaxiisa ku dhaca maa ku dhaha ma fahamti maanta hadduu xitaa
wax iga tabanayo anaa wax ka tabanayo asna wax iga tabanayo anaa wax ka tabanayo ku dhan faham ani asinoo gardhiga ninkii khaldan haddaan maanta ka khaldana madaxaan u salaaxa diyaara u ah hadduu asiga khaldayna xaqii igaa soo qaada xala u dambaysay marka waxa ugu dhahay niyo ninkaas wax ma ogola kasoo hor looma fahanti niyahow tasho midda kale oo leeyahana hooyadiis iyo familkiisa iyo mawaxo horta alxamdulilah qof maanta familkiisa wicin dee asoo soo ducaysan soo bixin horta ma jirto maanta waxa ku joogaana waa ducada labadeeda waalid marka alxamdulilah nin kale markaa waxay ka dhexeeyaan hooyada ayaa baha ma ka hadli kara arrinta waa arrin bareefado waaba qalad basuu qof kale u dhihi karaa ninka hooyadii ma waco ma hooyadii baa ka ogtahay hooyadiisi isaga caloosh ninkan kasoo calooshiisa kasoo baxay waa qalad horta qof inuu yidhaahdo nin uu ku yidhaahdo ninka hooyadii ma waco taa dadku way ku qaldiyiin aniga inta badan dhaliisha igaan ku saarayaa nin hooyadii nacab ma jiro maantana qof kasta waxa weeyaan hooyo uu u baahan yahay kii hooyadii dhimata allah u naxariisto kay nool shayn hooyadii ha ka ducaysto okay magaalada